waxaa maanta maxkamadda la hor keenay injineer cabdimanaan yuusuf maxamed oo ah mulkiilaha shirkadda Astaan Cable TV oo muddo gaadhaysa 20 cisho ku xidhnaa magaalada Hargeysa. Haddaba xarigiisaasi waxa ka warbixiyay garyaqaankii u doodayay injineer cabdimanaan yuusuf maxamed, waxaanu sheegay in maxkamaddu ay 7 cisho rumaan u jartay. Garyaqaanku waxa uu xarigaasi cabdimanaan uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. anigoo ah qareenka amba ka mid ah qareennada injineer cabdimanaan yuusuf maxamed oo xidhnaa muddo imika ku dhadhow 20 cisho waxaan doonayaa inaan halkan kaga faa'iideysto aan xaaladiisa imika idinka warramo. cabdimanaan waxaa la xidhay sida la socotaan 17kii bishii July muddo ayuu ku xidhnaa meel kale oo aan runtii aanan garanaynin. kadibna waxaa loo soo gudbiyey hoggaanka baadhista oo kiiskiisa imikana gacanta ku haya. sabtidii hore ayaa maxkamadda la hor keenay. maxkamadda waxay ka codsadeen baarayaashii iyo dadkii waday in ay la rumaan gareeyo ay waqti la siiyo maadaama iyaga markaas lagu soo wareejiyay maalin ka hor waa la siiyay. ilaa hadda saaka haddana la keenay saaka 5 bish tahay baa la keenay August. ilaa haddana waa la rumaan gareeyay saakana ilaa haddana wax information iyo gungaadha iyo waxa lagu haysta iyo cidda haysato toon oo cadi ma jiraan. waxaana wanaagsan in sharciga la ixtiraamo oo shuruucda dalka u disan la ixtiraamo oo qofkii dambi galana sharciga loo raaco ka la baadhayna sharciga loo raaco. dastuurkeenu wuxuu damaanad qaaday in aan qofna la iska xilkarin oo xorriyadda laga qaadin. qofka 2 goorunba laga qaadi karaa xorriyadda isagoo dambi kula jira faraha oo lagu qabto dambigii markaa faraha kula jira iyo in amar ogolaansho maxkamad laga soo qaato. labada midna may dhicin. nasiib darro waa la rumaan gareeyay mudduuna xidhanyay. maadaama markii horena sifo sharciga xarigiisa loo marin waxaan codsanaynaa xorriyadiisa in loo celiyo. cabdimanaan waa nin ganacsada ah ma aha nin qof yacni la waayo amba qof xumaan Soomaaliland ku involved amba ku lug leh. marka waxaan codsanaynaa in xorriyadiisa loo celiyo. markaas inuu yahay ganacsade waanu codsanay markiiba laakiin sharciyan damaanadda marka qofka qodobka lagu soo eedeeyay ay cadiyeen ay qodobka lagu eedeeyay loo haystaaba damaanadda la dalban kara. oo qodobada qaar damaanad bil qaar male si lamaba kala garanayay imika qodobka lagu eedeyn doono inuu damaanad leeyahay inuu damaanad lahayn. saa maxkamaddu way ka joogsatay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Cabdi Qowdhan maadaama wali loo soo sameyn xitaa information laga hayn xitaa gungaadhaan laga haynin uu ka gaabsaday inuu damaanad bixiyo. wuxuu yiri marka qodobka inuu hubsano lagu eedeeyo ayuu baynu damaanad bixinayna. taasina wali waa carqabado qofka inta la hayay waxay hayd in la og yahay qodobka ku eedeysay waxa loo haysto. waxaana halkaasina cadeynaysaa in aanu la iska xidhay iyadoo wax cadeynaba loo haynin.